وماذا Soomaaliya maanta waxa la sheegaa dhalinyarada ugu badan 75 wadankan ilaa 70 dhalinyaradii waxay wajahayaan xaalad adag shaqo la'aan wadankii shaqo kama jirto iskuuladii jaamacadaha dhameynayaan marka mar walba oo dhalinyaradu ay shaqo la'aan si ahaadaan waxay noqonaysaa in ay ku fakaraan fadhi ku dirir Soomaalidu maanta waxay siyaasadda uga dhigatay mowduuca kaliya laga hadlo وهو الآن تأدي هول وده أدي لها وحواي ولا جنا صلها قيوب بدن وكمده. الصوماليات وبقول كيف تضوات كبدن population الصومالية مركز السمي تراكب كقياسة هنتي حيابها مهمة كو أنصار أيوه وكبعين تدقالة أنا قرشها الله قرشه يجي سياسات وانصوب بندق مركانها كان ديتك وها نبض ينولل قيبت نولش waxay ahayd shaqo abuur si dhalinyarada loogu sameyn lahaa dhalinyarada waxa laga rabaa sidaan maanta iri hawshan madaxda Soomaaliyeed kaliya lagu sii deynin haddaad doonaysaan in nolol fiican la helo waa in dawladda gacan aad siisaan buuxda aad siisaan oo si buuxda u la shaqeysaan dhalinyaradu ay active ka noqoto in dawladdaanu ay noqoto dawlad shaqeysa annagu waxaan qabanaynaa runtii wax kasta oo suurtagelin kara waa jeclaan lahaa safarradu inay yar yihiin laakiin hadda waqtiga ugu horeeya oo aan doonayno inaan calaaqaadkii caalamka soo celino iyo xiriirkii waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed hadda qaataan ama nafteed dadka safarrada jecel ma ahi safarkii ugu horeeyay oo aan ku tagay Nairobi wuxuu ahaa safar miro dhal ah oo keenay in dadka Soomaaliyeed oo mari jiray meesha la yiraahdo Wajeer oo lagu dhibi jiray oo anigu xitaa aan kamid ahaa markaan prime minister ka ahaa oo aan qaadanay diyaaradaha shacabka aan arkay dhibka ay marayaan dadka Soomaaliyeed in aan arintaasi xal u helno ilaahna waa nagu guuleeyay oo runtii 3 usbuuc ka hor waxa bilaawday diyaaradihii tooska ahaa Xamar ilaa Nairobi tooska ahaa taas runtii safar guulah iyo ahaa kii ku xigay wuxuu ahaa Sacuudiga oo runtii daan cimro u tagay soo duceysanayay dawladda boqortooyada Sacuudigana aan ugu tagay inay naga kaalmayso dhanka dhan badan sida xoolihii ay joojiyeen in dib loo furo xoolihii maxay yeelay xooluhu waa kaabiyaasha waaweyn ee dhaqaalaha dadka Soomaaliyeed ka soo galo ilaa $300 milyan yaa ummadda Soomaaliyeed ka heshaa xoolahaas dhufinteeda in dib loo furo oo aan u sheegno cudurro inaysan qabin xoolaheena iyagana waa ogolaadeen waa fureen dhismayaasha dawladda guud ahaan kulli hadday yihiin kuwa gobolada ku yaalay kuwa Muqdisho dib loo cusboonaysiiyo oo dib loo dhiso madaxtooyada in la dumiyo oo dib loo dhiso waxay ballan qaadeen in baarlamaanka sarta baarlamaanka dib loo dhiso waxay ballan qaadeen in jidad ay dhisaan waxay ballan qaadeen airport cusub nafta dadka Soomaaliyeed waa qaali dhiigooduna waa qaali runtii wax laga xumaado weeye arintaas arin fiican ma aha waana ka hadalnay askarigii fuliyay arintaasna runtii waad ogtiin in la qabtay waxaana aan uga digaynaa qof walba inay ka taxadaraan arintan oo kale waa dhici kartaa accident bini aadana la yahay qofku waa ku dhici karaa accident ama shil waa ku dhici karaa laakiin marnaba ma ogolaanayno arrin ku talagal ah marna ma ogolaanayno maxaa yeelay dadkeen dhiigiisu iyo naftoodu waa qaali amisomna saan ognahay runtii 10 sano nala joogtay iyagu naftigoodu
naftoodii ku waayeen kuwa ka mid ah kuwa badan naftoodii ku waayeen inay runtii difaacaan dowladnimada Soomaaliyeed musuqmaasuqa dowladda markii soo gashay istaraatiiji ma jiray oo lagu fight gareynayo musuqmaasuqa hadduu jirana hadda ma jira dhinaca oo lagu biimeenayo inay shaqada oo strategiga la qaatay in maxaa hay sidii loo rabay inay ku socoto. So for example, is there any sort of يعني committee مجرى oversight committee عن كذا is there يعني وذا تشي organization for example هانتي دور كحسابية جود يعني attorney general كjudicial courts كلي all ده وصعده. سؤال شيء اللوات محاوي حرير كعالمي كهلسي سفرة هذا هرتور محانة تستث سفرة ومحوها واحد بدن كصباحي جابوا انت صدح لان بلود افرتان بلود الدولة هذا شقين محا اركي هرتور for example محا دريموس ودن كان إنه مال وسعته هذا التريب كأو نيروبي محين نقول جيت رفات لكن هذا محا اركو ساكا ديارة راعسة within 1 hour وادت نيروبي وحوين وكاس marka hore horta intii aanan shaqada la qaban waa inaad shaqada waxay tahay dadku waa inay wacyi geliso waa inaad ka hadashid musuqmaasuqa siduu u xun yahay iyo dhibaatada uu society ku yahay iyo dowladnimada uu ku yahay dadku inay fahmaan meesha ka taagan tahay musuqmaasuqa oo digniin aad u dirto oo aad u sheegto oo aad kala hadasho taas waa horta waa khasab marka hore oo ay arkaan dowladdu inaysan marnaba u dul qaadanaynin wax la yiraahdo musuqmaasuq isdabamaris is u dul qaadanaynin systemka ku xiga waxa weeye sidaan u monitor garan lahayn marka wixii musuqmaasuq ah shuruuc waa jirtaa shuruucdii in la cusboonaysiiyo boorka laga jafo keliya yaa loo baahan yahay waa dhab in la sameeyo committee ama commission oo musuqmaasuqa ah oo madax bannaan in la sameeyo loo baahan yahay oo oversight gareeya hay-adaha dowladda guud ahaan musuqmaasuqa keliya ma aha waxa laga fiirinayo ama lagala dagaalayo dowladda dhexdeeda keliya maaha waa shacabka dhexdiisa xitaa maxaa yeelay qofkii shacab ah oo qof laaluush siiya qof shacab ah oo aan canshuurta bixin ama canshuurtii si khalada u riboor gareeya waa qayb ka mid ah musuqmaasuq dhaqaale keliya maaha waxay soo gelaysaa sida shaqaalaha loo qoro waxay soo gelaysaa maxaan ku yiraahdaa cadaaladday soo gelaysaa iyada naftigeeda marka muhiimaddu waxay tahay shacabka Soomaaliyeed inay og yihiin meeshan ka taaganahay musuqmaasuqa qof walbana aan fahamsiino inuu xun yahay musuqmaasuq waxaa anaga nagu adag isu socodka baasaboorkeena waa taqaanaa ama waa fahamsan tahay meelaha uu gaari karo rivalku waa yar yahay caawa baasaboor Soomaali qofku wato meel uu uga degi karo rival ma jiro in dowladaha Djibouti xitaa markaad tagayso Djibouti-dan wallahi laanaay haddaadan meel ku digi lahayd iyo macluumaadkaaga invitation aadan haysan way adag tahay inaad socoto safarku waa adag yahay baasaboorkeen dowladdaadu waxaan ku talin lahaa inay qorshaha ku darsato sidii Soomaalida safarka loogu fududeyn lahaa oo dowladaha aad arkaysaan oo wadankan maalgashiga iyo siyaasadda iyo kala hadlaysaan aad ku dartaan in safarka la fududeeyo aad ugu maasan tahay arrintii wajeer arrintii fiisaha in baasaboorada diblomaasiyiinta iyo dadka oo maaragtay dowladda u shaqeeya ay ka degaan Jomo Kenyatta ayagoon maaragtay haddana in arrintaas aad loo kordhiyo oo Kenya ay ku ekaanin wadamo badan adduunka jiro si Soomaalida baahiye caafimaad qaba hadda dadka caafimaadka Hindiya aad loo aadaa fiisaha qofku wuxuu sugaa 15 maalin 20 maalin qof xaalad serious ku jiro waxa laga yaabaa in 20 kaas maalin ku baxaba marka runtii in tartiib bal dowladahaas ka hadashaan sidii Soomaalida muwaadiniinta baasaboorkan loo tayeey lahaa anaga lafteena micnay noo yeeleed markii hadda marka Google gareyso baasaboorka Soomaaliga imisa wadan rival ka yahay waa 0 hal xataa ma ku soo qabanayo maanta waxa la isku dhaafo allaha maanta sanadkan waxa lead ah Germany oo ka horeysay Sweden fahmi kartaa macna wax adduunyada wadanka quality-giisa micnay u tahay marka runtii in xiriirkeena dibadda marka la dhisaayo wasaaraddeena ay qorshaha ku darsato sidii wadamada muhiimka noo ah waliba ganacsi ahaan waxbarasho ahaan Soomaalidu aad u joogto ama bariga Afrika noqdaan ama Asia noqdaan sida Malaysia kale hadda waa la tagaa si on rival lagu tagaa oo hilmaamataas
iyada lafteeda inkastoo la iska rabo meelihii aad macluumaadkaaga dhammaystiran sida caadiga ah marka taladeeda waxay tahay in muwaadiniinta Soomaalida ee safraysa safarka si sahla intii lagu dari karo in sanad walba dawladda la xaqiijiyo dalka hadduu leeyahay bad image oo la yiraahdo waa corruption baasaboorradooda sax maaha oo cid walba qaadata qofkii lacag haysta waa heli karaa waa qayb ka mid ah dawlad xumada marka haddii dawladda aan wanaajinno oo aan qaabkii lagu qaadanaya baasaboorrada iyo systemkii aan adkeenno shaqo abuur aan bilowno oo ay noo yimaadaan kambaniyo oo dhalinyaradu aysan ka yaacayn dalka baasaboorkaaga macnuu yeelana maxaa yeele xaggee u cararaysa adaaba lagu soo cararayaay waddamada baasaboorrada qiimaha uu leeyahay waa waddamada la og yahay ama aaminsan dadkooda ay aaminsan yihiin dalkooda dalka fiican uusan jirin waxaan idiin sheegayaa marka waa dhici kartaa waa sax dhalinyaro badan inay ka cararaan meeshaan waxay uga cararayaan waxaa weeye shaqo la-aan iyo gaaja uga cararayaan Soomaaliya waa meel fiican Soomaaliya waa dal qani ah hadduu helo dad sophisticated ah marka daacadna ah oo ilaahay ka baqaya oo mustaqbal fiirinaya oo caalamkana arkay oo aqoon aan u dhinayn iyo sida adduunku uu shaqeeyo yaqaana waxaan aamsanahay Soomaaliya inay noqon karto muddo yar oo kooban si fiican dhageysta muddo yar oo kooban Soomaaliya inay noqon karto wadamada ugu qanisan Afrika ay noqon karto